in wax la sawiraayo ma aha wax fudud balse waxay u baahan tahay khibrad aad u dheeriya injineer Mawlid Hanad waxa uu kamid yahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaanu indhaweydba ku soo jiray sawirida qaybaha kala duwan ee magaalada Boorame ay ka kooban tahay Mawlid waa shakhsi aad u firfircoon isla mar ahaantaasina aad ugu xeel dheer sidii uu sawiro uga soo qaadi lahaa guud ahaanba gobolka Awdal iyo deegaanada hoos yimaada waxaana uu Mawlid sheegay in 2008 ilaa iyo sanadkan dhamaanaya ee 2016 uu ku jiray hawlaha sawir qaadida ee farshaxanka ku dheehan haddaba Mawlid ayaanu kula kulannay hoteelka Saw ee magaalada Boorama waxaanu wax ka weydiinay sanadkan dhamaanaya ee 2016 iyo sidoo kale sawirradii kala duwan ee uu ka soo qaaday magaalada Boorama oo aad arkaysaan kuwan idin muuqda bulshooy qarannimada hano bulshooy hadiya goor heega noqo bulshooy qarannimada hano bulshooy hadiya goor heega noqo bulshooy hawl qabadu hanuunsan oo dantaadana hagarkada dantaadana hawl qabadu hanuunsan oo dantaadana hagarkada dantaadana haddaba Mawlid oo noo waramay ayaa waxa uu sheegay marka hore adigoo magaca ku bilaabay السلام عليكم مقعي وحويان إنجينير Mawlid Hanad waxaan ahay photographer gobolka Awdal aad badan ma santeen noox aan ku mahadcelinay maanta la digu cusubto kamaradaada waan ku maasantahay waa hagaag Mawlid Hanad marka hore waxaad bal nooga warbixisaa goortii ama waqtigii aad sawir qaadan noqotay oo shaqadan aad ka bilowday magaalada Boorama waxa horta sawir waxaan qaaday ugu horeeyay 2008 markaas oo bilaabay inaan wax sawiro iyadoo ay u kaliftay markaan arkay gobolka Awdal iyadoo qofna uu jecleen inuu sawiro ayaa waxaan sameeyay muuqaalo picture sameynaya in magaalada dibadda soo saaro maantaasaan bilaabay ilaa imika oo 9 sanadood ayaan wax sawira aadna waan ugu faraxsanahay inaan gobolka ka qayb qaato bilicdiisa iyo qurxiisa dad badan oo igu xiran Facebook-ga iyo page-kayga way jiraan oo sawiradeena aad u jecel oo wadanka dibaddiisa jooga iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waan gartay muddo badan bad soo jirta hawshan sawir qaaditaan intaasoo mudood magaalada Boorama waxaad kala soo kulmaysay kobac iyo horumar iyo dibadhis bal maxaad intaa ku suuroobi karas leedahay oo isbedelay maanta horta alxamdulillah wax badan baa isbedelay iyadoo magaalada aad u weynaatay waqtigan sawirka bilaabay ilaa maanta oo waxaad arkaysaa deemka sawirada ka soo qaaday view-ga magaalada kaad aragto iyo 2009 oo kale iyo maanta aad buu kala duwan tahay magaalada aad u weynaatay dhinacyadana aad uga fiday alxamdulillah insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda ee bilaabmaya berrito haddii la yiraahdo inaan sawiro qurux badan magaalada ka qaadi doono haddii la yiraahdo waana jecelahay inaan sawiro badan ka qaado magaalada insha Allah hadda waxa dhamaaday sanadkii 2016 maanta koob saddex baa joognaa berriga January 2017 maxaa soo kordhinaysaa maxaad bedelaysaa hawshaadiina maxaa kordhin doonaa sanadkan se dhamaaday 2016 sawirradii aad qaaday maxaa ugu xiiso badnaa والله horta waxa ugu xiiso badnaa sawirradii sanadkan dhamaanaya ee 2016 barnaamij adoo adiga la qayb qaadatay oo gacantaada ay ku jirtay oo ka diyaariyay seeraha magaalada Boorama oo 1000 people ay daawadeen aadna wixii xiiseeyeen ayna igu soo hambaliyeen barnaamij soo diyaariyay oo adigana kugu mahadcelinayo waxa kale oo jiray sawirro guud oo ka qaaday magaalada oo muujinayay waliba in magaalada aad u fiday waxa kale oo jiray iyagana sawirro muujinayay magaalada dhexdeeda ka qaaday oo muujinayay population-ka aad u kordhay iyagana kuwaas oo jireen sanadkan soo socda waxay qorsheysay haddii la yiraahdo inaan sameeyo safarro aan ku tagayo magaalada Zeylac oo sawirro qurux badan ka soo qaaday doono insha Allah haddii la yiraahdo iyo magaalada Lughaya waxa kale oo rajaynaya inaan tago haddii la yiraahdo durka kacad oo
isaguna raba inaan sawir ka soo qaado maalin dhow tagay oo soo eegay soo qiimeeyay soo indheeyay isagana waan jecel inaan ku noqo sawir fiican ka soo qaado intaasaan insha Allah rajaynaya sanadka cusub inaan sameeyo dil ay dhaw qurba joogta gobolka awdal ku dhaqan muddo 20 sano ka badan maqnaa aad iyo ku xidhan ha dad badan ay ugu xidhan way jiraan ina dhiirigeliya waxna jecel inay la qabtaan kuwa jecel wax la qabtaan waxaan leeyahay wad ku mahadsantiin kuwan iyo ogeyn waxaan leeyahay ogaada insha Allah aad baan ugu mahad celinaya iyagana waxa kan u sheegaya aan faraya in hadii ilaahay dhado magaalada Boorama iyo gobolka Awdal oo dhanba aan insha Allah hadii chance aan helo ciidigu taageerta inaan soo wada maro oo jecelahay inaan sawir qurux badan iyo soo qaado aadna waan igu mahad celinaya dhamaantiin si kastaba ha ahaatee Mawlid Hanad waxa uu fariin u diray qurba joogta gobolka Awdal isagoo ugu baaqay waxaan baaqo dirayaa dhammaan qurba joogta gobolka Awdal waxaan leeyahay kulli wada aragtaan muuqaalada aan soo gudbiyay iyo sida qurux badan iyo bilicda magaalada waxaan jecelahay in la soo taageero oo haday camera noqoto haday tabarucaad kala noqoto in la iska aan qabto oo la istaageeraad bay wanaagsan tahay dhammaan qurba joogta waan diigu mahad celinayaa sidii dhiirigelisaan waana ku faraxsanahay kuwa dalka joogana waxaan leeyahay saadi jeceshihiin mar walba ay iga farxisaan marka sawir inay soo qaado tiradan sawir qurux badan baa soo qaaday Mawlid Hanad inigana aad baan iga mahad celinayaa dhiirigelintiina waxaan igu taageerayaa inuu leeyahay wad ku mahadsantiin saad mar walba iga joogtaan waana ku faraxsanahay waana mahadsantiin adigoo nuxkadiyo barnaamijka maanta iga duubayna aad baan kugu mahad celinayaa dhamaantiin aad baan islaamiyaa isku soo wada duubo bulsho kasta ayba waxay leedahay dowr qaade ama sidoo kale qof hiba u leh waxyaabo kala duwan taasna waxay ka dhigan tahay in dadka bulshada ku dhex jiraay ay soo bandhigaan hadda wixii ay maankooga ama maskaxdooda ay ku hayaan waa nuxkadiye magaalada Boorama